must be a great looking and a beautiful country. waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay dal muuqaal wanaagsan oo qurux badan. Fadlan waxaan ka codsanayaa inaad ii soo dirto muuqaalo qurux badan oo ku saabsan Soomaaliya. Aad baan u jeclaan lahaa inaan arko sawirrada quruxda badan ee Soomaaliya. waxaan barta Google ka daawanayay dhammaan sawirrada Soomaaliya. Ma malaysan kartid sida Soomaaliya u qurux badan tahay marka laga eego xeebaha. waxa kaloon aad u xasuustaa in caasimaddu ay tahay Muqdisho. dalkaasi waa dal aad u qurux badan. As I remember, it was Mogadishu that was the capital. How beautiful is your country? jilaaga caanka ee dhanka filimada Bollywood-ka ee wadanka Hindiya Akshay Kumar oo waraysi gaar ah siiyay laanta af Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu ka waramay filimkiisa cusub ee Padman ee uu kaga hadlayo baahida loo qabo in dumarka dalka Hindiya ay helaan suufka xilliga caadada ay dumarka isticmaalaan iyo waliba waxa uu ka ogyahay Soomaalida daawato aflaantiisa iyo xaaladda guud ee Soomaaliya. haddaba wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato ayaa waxa uu qadka telefoonka ee magaalada Bombay ee dalka Hindiya kula xiriiray Akshay Kumar waxaana marka hore uu weydiiyay waxa ku dhaliyay inuu sameeyo filimkan Padman. When I tried to do a movie on toilets, the fact came that 54% of Indians don't have toilets in their house. markii aan isku dayay inaan film ka sameeyo musqulaha dalka Hindiya, xaqiiqdu waxa ay noqotay in 54% shacabka reer Hindiya aysan haysan musqulo ku filan. Banaanada, wadooyinka iyo xeebaha ay dadku ku soo xaroodaan. marka sidaas si la mid ah ayaa waxaan ogaaday in 54% dumarka wadanka Hindiya aysan isticmaalin suufka nadaafadda ee dumarka. maxaa yeelay ma heli karaan qaarna maba awoodaanba inay helaan suufkaasi oo waxay adeegsadaan carrada dambaska iyo maryo wasaq ah. waana xaqiiq jirta oo ay tahay inaan wax ka sameeyo. sababta kale ee ugu weyn ee aan filimkan u sameeyay ayaa waxa ay tahay in dalkayga Hindiya aan ka dhigo dal adag. dalkaana si uu u noqdo dal adag waa inaad heshaa dumar aad u adag. haddii dumarka ay yihiin kuwo adag, dalkaagana waxa uu noqonayaa mid adag. As the woman is strong, your country becomes strong. Akshay Kumar, maadaama dadku ay kaga barteen aflaanta dagaalka ku salaysan amaba kuwa jacaylka, dadka reer Hindiya iyo waliba caalamka markaad eegto sidee bay uga falceliyeen amaba ay u arkeen filimkan cusub ee Padman? Well, the public reaction, 90% people are talking good. falcelinta dadweynaha 90% wanaag ay ka sheegayeen, halka 10% dadka aysan u arkin wax wanaagsan. tusaale ahaan bartayda Twitter-ka waxaan ku arkay dad ii soo qoray oo leh Akshay Kumar maxaa kugu dhacay? ma waxaad film ka sameysay caadada dumarka? waad caabaysan tahay. waxayna ka mid tahay waxyaabaha dadka qaar ay soo diraan. aniga wax dhib ah uma arko, balse qofkaasi maalin ayuu ogaan doonaa inuu qaldan yahay. aad baan ugu faraxsanahay inaan ku iraahdo xaaskayga ayaa soo saartay filimkani. caadada gabdhaha dalka Hindiya ceeb ay ka tahay, balse mar dhow oo muddo 2 sano gudahood ah waxaan ballan qaadayaa intaasi aysan noqon doonin wax ceeb ah. waan gartay marka Akshay, arrimaha Soomaalida haddii aan kala hadlo, Soomaaliya iyo waliba deegaanada kale ee Soomaalidu degan yihiin dadka aad bay u daawadaan aflaantaada oo loo turjumay luqadda afka Soomaaliga. waxaana dadka qaar ay ku yaqaanaan magaca Mr. Bond. marka arrintaasi maxaad ka ogtahay? I didn't know anything about it, to be honest. haddii aan si daacad ah kula hadlo, runtii ma ogeyn in dadka Soomaalida ay daawadaan aflaantayda. marka hore waxaan leeyahay qof walba oo Soomaali ah oo ii dhageysanaya sanad wanaagsan. xaaladda Soomaaliya aad baan ugu warhayaa, waana ku faraxsanahay in dadka Soomaalida ah ay taageeraan oo ay daawadaan aflaanta Hindiga. Soomaalidu waa dad aan aad u ixtiraamo. waxaan rajaynayaa inaan imaado Soomaaliya. run ahaantii ma ogeyn taageerada ii hayaan Soomaalida, balse waad ku mahadsan tahay inaad ii sheegtay. Thank you for telling me this. waan gartay marka adigu ka shakhsi ahaan maxaad ka aaminsan tahay Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ee daawada aflaantaada? I believe it must be a great looking and a beautiful country. waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay dal muuqaal wanaagsan oo qurux badan. fadlan waxaan ka codsanayaa inaad ii soo dirto muuqaalo qurux badan oo ku saabsan Soomaaliya. aad baan u jeclaan lahaa inaan arko sawirrada quruxda badan ee Soomaaliya. waxaan barta Google ka daawanayay dhammaan sawirrada Soomaaliya. ma malaysan kartid sida Soomaaliya u qurux badan tahay marka laga eego xeebaha. waxa kaloon aad u xasuustaa in caasimaddu ay tahay Muqdisho. dalkaasi waa dal aad u qurux badan. As I remember, it was Mogadishu that was the capital. How beautiful is your country? Akshay, waxyaabo inta badan ee dadku isweydiiyaan waxaa ka mid ah khatarta ka soo wajahdo markaad samaynayso aflaanta actionka ama aflaanta ku salaysan dagaalka. marka arrimahaasi maxaad inooga sheegi kartaa?
Well, I do a lot of action, but run ahaantii waan sameeyaa aflaan badan oo action ah balse inta aan filimka samayn waxaan sameeyaa taxadar aad u badan. I take a proper care before I do it. ugu dambeyntii marka maxaa jeclaan lahayd inaad u sheegto dadka Soomaalida ay ku dhageysanaya? I would like to tell them, first of all, to come and watch Padman. waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan u sheega inay daawadaan filimka cusub ee Padman maxaa yeelay waa filim u wanaagsan caalamka dalkayga iyo Soomaalidaba. waxaa kaloo aan jeclaan lahaa inaan u sheega in caadada dumarka ay tahay wax dabiici ah. waxaa kaloo dadka Soomaaliyeed u sheegaya inay ilaaliyaan oo ay ka taxadaraan waalidiintooda gaar ahaan hooyooyinka. Especially their mother. चुरा के दिल मेरा गोरिया चली चुरा के दिल मेरा गोरिया चली उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली